Somaliland oo dalka dibadiisa shafaro shaqo ugu maqnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada Marwe Shukri Xariir Ismaaciil oo dalka Jaarka aynu nahay ee Djibouti kaga qayb gashay shir ay soo agaasimeen dawladaha IGAD oo lagaga hadlayay horumarinta lamaanaha iyo haweenka ayaa dalka dib ugu soo laabatay iyadoo safarkan ay ku wehelinayeen la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca haweenka gudoomiyaha hay'adda xuquuqul insaanka Somaliland iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee IGAD dadka kalena maareeyaha hay'adda wadooyinka iyo gudoomiyaha hay'adda qandaraasyada qaranka oo dalka China u tagay sidii ay uga soo iibin lahaayeen qalab wadooyinka ayaa iyaguna dalka dib ugu soo laabtay iyagoo sheegay in qalabkaasi ay soo iibiyeen shir caalami oo lagaga hadlayay dhibaatooyinka burcadbadeeda oo lagu qabtay dalka Djibouti ayaa waxa ka qayb galay wafud reer Somaliland oo hogaaminaya taliyaha ciidanka badda agaasimaha la dagaalanka hay'adda burcadbadeeda agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo maareeyaha ku-xigeenka dekedda Berbera ayaa iyaguna dalka dib ugu soo laabtay iyagoo soo dhameystay hawlihii shaqo ee dalka dibadiisa ay